soo dhawaad saaxiibayaal magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa lagu qabtay shir heer sare ah oo u dhaxeeyay dawladda Talyaaniga iyo dalal badan oo Afrikaan ah. Soomaaliya waxay qayb ka ahayd dalalka Afrikaanka ah ee ka qayb galay shirkaasi ee Talyaaniga iyo qaaradda Afrika u dhaxeeyay. Talyaanigu wuxuu shirkaasi ku soo bandhigay doonistiisa inuu dib ugu soo laabto qaaradda Afrika isagoo xoojinayo xiriirkii taariikhiga ahaa ee kala dhaxeeyay qaaradda Afrika dhinacyada dhaqaalaha, iskaashiga amniga iyo xoojinta ka hortagga tahriibka. Haddaba waxaynu eegi doonaa Soomaaliya oo qayb ka ah dalalka xiriirka taariikhiga ah lahaa Talyaaniga waxyaabaha uu ka faa'iidi karo shirkaas iyo qodobada ka soo baxa. Soomaaliya iyo Talyaaniga waxaa ka dhaxeeyay xiriir taariikhi ah oo soo taxnaatan iyo xilligii gumaysiga. Inkastoo taariikhdaasi ay leedahay dhinacyo kala duwan, haddana maanta waxay fursad u tahay in la helo iskaashi dawladeed, in la helo taageero sharci dejin iyo maamulka maaliyadda, iyo in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Midowga Yurub. Dawladda Talyaaniga waxa uu ka mid yahay dalalka saameynta ku leh siyaasadda Midowga Yurub, taasoo Soomaaliya u sahli karta inay hesho taageero dheeraad ah oo ka timaada Yurub. Fursadaha dhaqaale iyo maalgashi. Shirkan wuxuu Soomaaliya u furi karaa albaab cusub oo maalgashi, gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha, dib u dhiska dekedaha, horumarinta garoomada diyaaradaha, dhismaha wadooyinka iyo isku xirka ganacsiga. Talyaanigu wuxuu daneynayaa mashaariicda tamarta nadiifta ah. Soomaaliyana waxay leedahay cadceed badan iyo dhul furan, waxayna noqon kartaa meel soo jiidasho leh oo Talyaanigu aad u daneynaya. Beeraha iyo kalluumeysiga. Soomaaliya waxay qani ku tahay dhul beereed iyo kalluumeysi, taas oo ay kaga faa'iideysan karto in ay Talyaaniga ka hesho qalab casri ah, tababar farsamo, suuqgeyn wax soo saarka Soomaaliya. Haddii si hufan loo maareeyo tani waxay abuuri kartaa shaqooyin badan oo dhalinyarada ah. Dhinaca amniga iyo la dagaalanka tahriibka. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee Talyaanigu xooga saarayo waa joojinta qulqulka muhaajiriinta Afrika ee Yurub. Soomaaliya waxay ka heli kartaa taageero lagu xoojinayo ilaalada xeebaha, qalab iyo tababar booliis, barnaamijyo shaqo abuur dhalinyaro si loo yareeyo tahriibka. Haddii fursadaha shaqo kordhaan, waxay yiraahdaa sababaha dhalinyarada ku reexa inay tahriibaan. Waxbarashada iyo horumarka aqooneed waa qayb ka mid ah waxyaabaha Soomaaliya ay ka faa'iidi karto Talyaaniga. Waxaana la fili karaa deeqo waxbarasho oo jaamacadaha Talyaaniga ah, iskaashi jaamacadeed, tababaro xirfadeed iyo farsamo. Arrintani waxay si toos ah u saameyn kartaa tayada aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha Soomaaliya. Shirka noocan ah, Soomaaliya waxay siinayaan fursad ay codkeeda kaga dhiibato arrimaha qaaradda. Addis Ababa oo ah xarunta Midowga Afrika waxay astaan u tahay doorka qaaradeed ee shirka. Soomaaliya waxay ka faa'iideysan